badan waxaa dhagaheena ku soo dhaca heestaas hebel baa la xameeyey waa la xameeyey haddaba waxaynu wax badan ka eegi doonaa maanta waa maxay laxan qiime intee la eg buu laxanku ugu fadhiyaa heesta maxaa ka garanaysaa fanaaniinta iyagoo heesa haddana sameeya laxamada qof walba miyaa samayn kara laxan mise waa hibe ay leeyihiin dad gaara haddaba si aad wax badan uga ogaato macluumaadkaas iyo qaar kale fadlan rukumo bartan oo saar subscribe furo gambaleylka si aad u noqoto daawadaha koobaad iyo saaxiib nala socda xilli walba nagu dhiirigeli leegta lana wadaag muuqaalka asxaabtaada kale mahadsanid laxan waa erey carabi ah micnihiisuna uu yahay cod samayn waana luuqadda keliya uu fahmi karo ama jeclaysan karo qof kastoo adduunka ku nool waana sababta aad mararka qaar dhagaha ula raacdo heese aadan micnahooda fahmin haddana aad laxan ahaan ka helayso qolo kastoo adduunka ku nool laxankooda meel ayuu ka kacaa waxaa jira wadamo laxamadooda uu ishabaho sida Soomaaliya Ethiopia iyo Suudaan oo laxankoodu ka wada kaco shanta xarig ee kabanka haddaba laxanka ayaa ku yimaada dareen mana aha wax uu qof walba samayn karo waana hibo ay leeyihiin dad gaara laxanka ayaa ah waxa ugu dhibka badan marka hees la sameynayo kaas oo mar walba qofka sameynaya gelinaya xaaladda ay ka hadlayaan ereyada uu laxameynayo haddaba maxaa kala socotaa dadka ugu caansan ee sameeya laxamada kuwii hore iyo kuwa haddaba haddaan wax ka xusno mulaxamiintii hore waxa ugu caansan Cabdikariin Jiir Xasan Gareyd Jim Sheekh Muumin iyo Bare Maxamed Fiidow waxaa jira fanaaniin heesa haddana heesaha la xameeyo kuwii hore haddaan wax ka xusno waxaa ka mid ah Axmed Cali Cigaal Axmed Gacayte Maxamed Nuur Giriig Cumar Dhuule Cali iyo Saalax Qaasim Naaji farshaxanka iyo habeynta qofka mulaxanka ah ayaa ka dhigi karta inay soo baxdo wax tayo leh oo macaan kaliya lama la xameeyo heesaha sidoo kale erey kasta ayaa la xameyn karaa haddaan tusaale soo qaadano waxaa jira gabay loo la xameeyay qaab hees oo haddana ka mid ah heesaha ugu caansan waxaa qaada Allah u naxariistay fanaanadii weyneed Xabiibo Xasan Tooxow waxaana laxanka ku laray Bare Maxamed Fiidow oo ahaa isagu mulaxamiinta ugu caansan ee kuwii hore gabaygaasna ayaa la oran jiray ixtiraam gobeed ereyadana ayaa ahaa kuwa gabay una dhacay sidan ixtiraam gobaad iyo wanaag baan isku ogeynay eed gashay waxa kuugu wacan waa afkala qaad indhahaaga oo shana adaa ka iskay baray naf lagugu aaminay adaa saartay oogaday adiga axdiga qaadayo waan adkeyn yiri oo baraka dhigay ixtiraam gobaad iyo wanaag gobaan isku ogeynay ixtiraam gobaad iyo wanaag gobaan isku ogeynay eed gashay waxa kuugu wacan waa afkala qaade indhahaaga oo shanaada ka iskay baray naf lagugu aaminayada saray oogaday adiga axdiga qaadayo waan adkeyn yiriye si unigalan migaadan kaga soo go'ay waqti intee leeg ayaa lagu laxameyn karaa hees walba ayaa qaadata waqti u gooniya waxaa jira heeso uu qofka isla markiiba helaya laxankooda iyo kuwa muddo badan ay ku qaadanayso xitaa haddii uu qofku yahay mid professional fanaaniinta hadda kuwa sameeya laxamada waxaa ka mid ah uguna caansan Nabiil Bulle Sakriye Kobciye Qamar Suugaani Khalid Kaamil Iskalaaj Yare iyo qaar kale laxamada Soomaaliga ayaa sida hore u soo xusnaba ka kaca shanta xarig ee kabanka haddii ay taa dhici weydana codka ayaa noqonaya half-tone heesaha banaadiriga ah ayaa ah laxamadoodu wada half-tone muhiim ma aha qofka laxanka sameynaya inuu yahay musician mararka qaar waxaa dhacda in laxan qof ku adkaada oo qof kale si fudud ku helo sida heesta balanbaalis qalima leh heesta oo sidoo sheegay mulaxanka iyo fanaanka weyn ee Saalax Qaasim Naaji in muddo badan uu hayay una laxankeeda keeni waayay markii dambana iyagoo wada fadhiyo uu ku yiri isku day mulaxankii weynaa Allah u naxariistay Axmed Nuur Jango oo isagu isla markii iyo fadhigiiba ku helay laxanka heestaas laxankeeduna ayaa u dhacay sidan sida meel barwaaqa oo buura dhaadheer wabi baal marayo
barbarkana daruuru kaga beegayno waaguna baryaayo waxa laga yaabaa in isweydiinayso maxaa weeye laxanka maanta dhan laga hadlayo laxan ama qofka mulaxanka waxa mar walba xukuma oo abwaanka ereyada sameeyay ereyada markay qoran yihiin ayuu mulaxanku waa kan codka u sameynaya iyo qaabka ay u dhacayso waa diyaarintii iyo isku tabaridkii duwaxidaayo inta muuqaal mid kala mid ku kulmi doono sidaas iyo nabaadiino